waxaa kulan lama ilaawaana la qaatay jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika wasiirka booliska South Africa iyo madax sarsare ee ka socota dawladda South Africa sidoo kale kulankaasi waxaa qayb ka ahaa dadka wadaniga ah ee deegaanka Khaliija oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka jireen xasilooni darro baahsan oo lagu la kacay Soomaalida South Africa kulankani ayaa ka dambeeyay kulamo joogto ah oo maalmihii ugu dambeeyay boolisku ka yeelanayeen sidii looga hortagi lahaa dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo Soomaalida magangalyada u joogta wadankooda wuxuuna maanta wasiirku shaaca ka qaaday inay wax ka qaban doonaan dhanka ammaanka isla markaana boolisku isku mid u dhaqmi doono guud ahaan dadka ku nool dalka South Africa wasiirka ayaa ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono dhanka amniga iyo xasiloonida wadanka sheegeen in Soomaalidu xil ka saaran yahay having listened to each and every one of you talking here what Chief Whip ANC Commercial who welcomed us here. Soomaalidii madashaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdi Axmed oo matalay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Koonfur Afrika ayaa indhaha runta ka saaray wasiirka iyo mas'uuliyiinta South Africa sheegayna amni darrada ku haysata wadanka ay u soo hayaameen. The South African police should, they really need to control the crime because in our case, especially when I'm talking as a foreigner, there have been a lot of foreigners who have been killed in the process of businesses or in other areas actually. And Honorable Minister, I need to inform you honestly that most of these cases has not been followed. And many of these cases are still pending. Some of them have been dropped and they just go to the court and everything is being taken. I mean, clearly there is no investigation which has been done. And we have got proof for this actually. kulankan wasiirka amniga ee dalka South Africa uu la yeeshay jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika ayaa ku soo gabagaboway Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale Somali Journal South Africa